هل من فارحان يرفنا إليك بل اللي انت إيه كاسعة تانية مركز شغالة كإما إلا ساعة ده waagii hore dumarka un baa rafan jiray waagii hore dumar oynaayay un baad arkaysa laakiin hadda faaraxyaashii macal waa jabeen macnaha waana loo soo jeestay hadda xalimooyinku waxay gaareen heer ay macal commenti ku soo qoraan imika tan maxay dhahday Leila we are proud of you ku faraxsannahay Leila macnaha ninkan inaad ka oysiisid waa ma ku faraxsannahay Leila midaana waxay dhahday we are happy Xalimo macnaha waa ma ku faraxsannahay bade ina soo gashido aan ku faraxsanaa waan rabnaa noo soo badi FIFA Dumarland maxaa dhahdeen ba gabadhan dhahday taas macnaheedu waxa weeyaan dumarku waxay raadinayeen hal chance kaasi muxuu ahaa hal mar inay arkaan nin rago oynaya macnaha maalmaha arda qaar baa wala keenkeenay laakiin kan waa ugu daran yahay kan aan waxa fahmi waayba inay run ka tahay macallin inay been ka tahay sababtoo ah bal hal mar yara fiirso fiidiyogan cibiskeer leeyahay waxaan u diidana ruux nafteeda raacraaciyo wasaas ninka ani macluumaad ka shaqeeyo run uma weynaa isdhaa ninka wax ku dhax qaranaya waxaan midaan waxay dhahday Leylina naag nool aad tahay dumarku maalmahan aad isku taageeraan dumarku waagii hore business ku isku taageeri jireen moogtay waxay dhigi jireen hiblaayi meel yar baan furtoon dhar ku gadaaye bal isoo yara gaadgaadde hal dirac iga iibso laakiin hadda hadday arkaan nin uu oynay gabar waxay dhahayaan ba gabadhaasay shaqada bal qabataa adu maasha Allah sida imka tan oo kale de biyo isku shubay ilaahu hadaan ku aamino horta wallahi tani been uma yara eeko ninkan nin sax oynay maaha ninkan laftirkiisa indii loo eego waay muxuu yahay midaana aad wax sii fahansan ba waxay dhahday indhahani indha jacayl la oynayo uma eeko waa indho qooq la oynaya ya midaana challenge bay ka dhigtay baarintii waxay dhahday anigu faarax sidan aan ugu oysiiyaan rabaa anigu waa qaraaray waa xanaaqay ka wadaa malaade faaraxyaasha in lagu oysiiyo challenge inay ka dhigaan bay gabdhuhu rabaan ba umaleeyaa diyaar waa ka oysiin kartiin ka oysiiya noo soo dir kadib noo ka hadlan anaguna nin oynay hadda arkay bay dhahday gabadhani qosol iskuma celin karo macnaha rag inay ooyaan bay ku qosashaaba Xalimo soo tashataya xafiiska haweenku waagi hore guriga waxaa jiray moogta la isku yara talaabi jiray hayeena hiblaayi kii muxuu leeyahay laakiin hadda commentigu noqdayba macnaha haddii qof la rabo commentiga lagu jeexjeexiba waa la hayaaba qofkaas ayo ruux bilaad ka taxadar kara ma jirto ruux kasta dadkiisu iska raacanaya saas marka dan igu jirto midaan waxay dhahday baa Leila ku soco kuwa kalena hadaad haysa ka soo dhig mana taxana nooga dhig bay kula daayday maanta dadkan ka duubtay mid kalena keen hadaan ku aaminay bay gabadhan dhahday yuhud ilaahay hayga dhigo manaha faarax inuu ooyo waa bal aamin leeyahay ba sababtoo ah faarax laguma oga oohinta iyagu baa ku weysiin jiray laakiin qaar ooyo way jiraan oo waxaan u maleynayaa isma duubaan iyagu intaas ku dhaamaan dumarka dumarku way sira duubay waxay isleeyihiin bal iska yara duuba beri toolaad soo yara dhigan meele ama isaga ma u dirtaa ka yara dhexe laakiin faarax uu oynaa ma duubay laakiin waa oynaa waa diida ina aragti macal wajigiisa saas u dhaa sababtoo wuxuu isleeyahay dhuu toolaa waxa lagu leeyahay kii oynaa way kan hada wiil tahay mid dumar ka weysiyo taqaanaa taa ku dheh haddii aad gabar tahayna gabar ragga ka weysiiso taqaanaa ee taa ku dheh